Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada casharkeena Windows 10 barashada Windows 10 oo taxanaha ah. Maanta casharkan waxaan ku eegaynaa sida loo bedelo display settingska computerka ama monitorada computerka ku xiran sida muuqaalkooda iyo sida ay isugu xigaan loo bedelo. Marka si aad taas u samaysid waxaad tegaysaa aad gujinaysaa start, waxaad gujinaysaa settings markaa gujisay waxaad tegaysaa system baad gujinaysaa. Halkan waxaa kuu soo baxaya oo ah settings qaybtiisa koowaad oo ah display monitorada computerka ku xiran iyo sida isugu xigaan. So hadda dhanka midigta waxaa ii yaala monitor number 2 ama monitorka labaad, kan saddexaad dhexduu ku jiraa, kan koowaadna dhinaca bidixda ayuu yaal. Marka haddii aan ogaado monitor keebaa ah kow, kee laba ah, kee saddex ah, waxaan gujinayaa identify. Marka wuxuu ii soo baxayaa monitorada nambaradooda. Mouseka markaan xagga hadda saan u aado oo kan ka gudbo dhanka bidixda, wuxuu tegayaa mousku monitorka labaad. Haddaan soo noqdo kii saddexaad uu kusoo noqonayo dhexda ku jira. Haddii aan dhankan midigta aado wuxuu aadayaa kan koowaad. Marka haddii aan rabo inaan rearrangement ama isku duwo oo markaan ka soo qaado hadduu monitorkayga koowaad uu dhankan bidixda jiro, kan labaadna uu midigta jiro, waxaan odhan karaa kow xaggaan keeni karaa, labana xaggaan keeni karaa. Markaas saas dhaho ayaan waxaan gujinayaa apply. Markaas micnaheeda waxa weeye monitorkayga koowaad dhanka bidixda buu jiraa, kan labaadna dhanka midigta, kan saddexaadna waa dhexda. Marka mouseka iyo iyo monitorada waa isla shaqaynayaan. qaybtaas waa monitor arrangementiga, monitorada sida la isugu hagaajiyo. waxaad bedeli kadhaa oo kale brightnesska ama midabka ama muuqaalka monitorka. meesha rabtid ayaad geyn kadhaa. brightnesskan wuxuu bedelaa laptopka screenka haddii aad laptop haysatid, laakiin monitorada computerka ku xiran waxba kama bedelo. oo haddii aad desktop haysatid oo monitor ku xiran yahay, brightnesskan waxba kama bedelayo. laakiin laptop haddaa haysatid, markaad hoos geysid wuu madoobaanayaa oo muuqaalka wuxuu noqonayaa madow. markaad dhankan geysidna muuqaal muuqda oo brighta ayuu noqonayaa. night lightka sidoo kale on iyo off aa ka dhigi kadhaa. Windows waxaa laga yaabaa computerkaaga inuusan optionskan lahayn. hadda Windows HD color oo kale computerada qaarkood ma lahan oo waxay ku xiran tahay quwadda awoodda iyo video cardkaaga. marka iyadana waxaa ka bedeli kadhaa sida uu monitorkaaga u egyahay ama muuqaalka uu soo saarayo. haddaa rabtid inaad muuqaalka aad u muujisid oo vivid ka dhigtid iyo haddii kale halkaas ayaa ka bedeli kadhaa. laakiin badanaa siduu ku yimaado baa loo daayaa oo colorskan waxba lagama bedelo. scale layoutka waxa weeye waa muuqaalka qoraalka textka oo ku qoran sida qoraalada kasoo baxayo fontiga oo kale intuu yahay sizekooda. hadda halkan wuxuu ii sheegaya 100% waa recommended. kaasina u dhaafo. haddii aan laakiin ka bedelo 175 ka dhigo, marka qoraalkii muuqaalkii monitorka ayuu aad u weyneynaya oo fartiibu waa weyneynaya. kan ku xiga waxa weeye screen resolutionka oo pixelska monitorka. badanaa waxaa loo dhaafaa meeshuu Windowska recommended ku dhaho. laakiin haddaa rabtid inaad qoraalka waaweyneysid ama iconska shortcutska programmada aad u waaweyneysid, hoosaad u dhigi kadhaa oo waxaad ka dhigi kadhaa far waaweyn iyo muuqaal waaweyn oo screenka aad u muuqda. laakiinse badanaa waxaa wanaagsan meesha uu Windowska recommendationka uu ku siiyo in loo daayo, waayo kaasaa uu based on screen sizeka aad haysatid ama ballaca screenkaaga. Windowska way si automatica ayay u helaysaa. markaas tii ugu wanaagsan bay kuu soo saaraysaa oo resolutionka ugu wanaagsan. haddaa rabtidna waa bedeli kadhaa.
halkan waxaad ka dhigi kartaa portrait iyo landscape macnaha qaabka uu screenkaaga u samaysan yahay haddaa balac rabtid inaad ka dhigtid iyo haddii aad rabtid sida caadiga ah oo landscape oo dherarka ah aad ka dhigtid taasna halkaasaad ka bedelaysaa haddii computerkaaga laba screen ama ka badan ku xiran yihiin optionskan waxaa ka dhigi kartaa inaad screenmada oo markaad mid ka shaqaynaysid kan kalena aa wax kala saarsatid oo kale waa extended waxa micnaheeda waxa weeye screenkii ii dheere oo waxaad iiga dhigtaa sidaa markaan mid ka shaqaynayo aan wax kan kale u saaro iyo kan labaad iyo kan saddexaad iyadoo aan markaas isku wax aanan ka arkin screenada laakiin haddii aad ka dhigtid duplicate macnaha waxa weeye labada screen isku wax ka soo saar oo markaan mid wax ka eegayo ama wax ku furo sidoo kale kii kalena wixii baan ka arkaa kuna furaya laakiin extended haddaan ka dhigo mid baan ku shaqaynaya oo programku markaan furo kan kale uun waan u duraagaraynaya hadda ka soo qaad waxaan furay notepad oo kale screenkaanuu ku furay waan daraagarayn karaa oo screenka labaad oo kale baan geyn karaa markaasaan haddana mid kale furi karaa oo geyn karaa screenka koowaad oo isagana dhanka kale jira marka saddexdaydii screenba mid walba gaarkiisu u shaqaynaya oo waxbaan geysan karaa saarsan karaa sidaan rabo aan u saarsan karaa laakiin haddaan dhaho duplicate micnaheeda waxa weeye labadii screen isku waxaa kasoo baxaya markaan kan wax ka furo kan kalena waxaas way ka furmayaan mar walba aad bedeshid waxaad odhanaysaa apply changes si uu markaas isbeddelkaas uu kuugu joogo revert haddaad tidhaahdidna keep changes haddaad tidhahdi markaa wixii aad bedeshay wuu kuu joogayaa uu kuu save garaynayaa revert haddaad tidhaahdidna sidii hore uu kuugu celinayaa marka halkan hoosena waxaa kale connect wireless display oo kale waxaad samayn kartaa haddii aad screen oo wireless aad haysatid oo kale haddaa gujisid waxaa kuu soo baxaya wixii screen oo wireless uu ku xirmi karo ama bluetooth ama wireless ha ahaadee marka sidaas uunbaa monitorka display settingkiiska meesha laga bedelana waa sidaas uunbaa loo badbedelaa qaybta ugu muhiimsan oo casharkan maanta waxa weeye waa qaybta ugu koreysa oo ah markaad monitoro badan computerka ugu xiran yihiin sida loo arrangement loogu sameeyo oo laysugu xixeejiyo iyo qaybtan hoose oo ah resolutionka sida loo bedelo computerka iyo weliba scaleka oo scale layoutka oo macnaha ballaca amase weynaanta qoraalada iyo applicationada siday u egyihiin loo bedelo labadaas qaybood iyo qaybtan hoose oo multi display markaad monitoro badan computerka ugu xiran yihiin sidii aad extended uga dhigi lahayd ama duplicate uga dhigi lahayd oo extended micnaheedana hore u sheegnoo nidhi waa uun ballaarinaysaa monitoradii waa waxyaalo kala duwan ka soo saaraysaa duplicatena labadii monitor isku wax unbaa kasoo baxaya qaybahaas ayaa ugu muhiimsan qaybahan hoose haddii loo baahan yahay waxaan ku qeexi karnaa cashar dame marka haddaa rabtaan inaan qaybahan iyagana aan ka hadlo advanced settings graphic settings wireless display qoraalka hoos iigu soo qoro markaas si aan cashar dame usoo geliyo laakiinse settings display settingska maanta intaasaan uga baxaynaa waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu